waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay banaanbaxa ziyaaradii afaraad Allah u naxariistay Imaam Kutubey Cali Nuur oo ahayd dariiqada Mawlaca Sheekh Cali Cabdulle Allah u naxariistay Imaam Kutubey oo ahayd hooyadii dhashay saaxiibo sajada Sheekh Jire Sheekh Cali Cabdulle ziyaaradan sanad walba xilligan oo kala la qabto ayaa galabta waxa isugu yimid qaybaha kala duwan ee dariiqada Ahmadiyya gaar ahaan Rahmaaniyya iyo Rashiidiyya iyo sidoo kale dariiqada Rufaaciyya ziyaaradan ayaa maanta lagu qabtay xarunta Mawlaca Weyne Sheekh Cali Cabdulle ee xaafadda Ducale ee degmada Kaaraan idoona dariiqooyinka kala duwan ee ka soo qayb galay ziyaaradan goobta ka soo bandhigeen xilqooyin dhowr ah قريب مجيب يستجيب لمن دعا جواد إذا عدا يتجزال إذا سئل الخيرات عدا جزيلها ويدفع مكروه بلا ويزولون إذا سئل الخيرات عدا جزيلها ويدفع مكروه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله وأنت في اللهو والزاد غليل لو كنت تدري ما تلاقي غدا لذمت من فيض البكاء والعويل فأغلي توبة تحظى بها فما بقي من العمر إلا غليل ولأنت كنت ذا غفلة فإن قدامك
يمسي ويصبح مغرورا وغرارا هلا تركت من الدنيا معارضة حتى تعانق في الفردوس أبكارا إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي بها لا تمنى allah u naxariistay maamo kutubi cali nuur ayaa lagu xasuustaa doorkii ku lahayd u gargaaridda dadka tabaaleysan iyadoona sidoo kale wax badan usoo qadmiyeysay xeerta jaamacadda sheekh cali cabdulle guud ahaan markii lasoo gabagabeeyey banaanbaxa ziyaaradani waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah culimmadii ajilada ahayd ee kasoo qayb gashay ziyaaradan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin wadaayaalo qiyaama haddii la gaaro qaarkooda qaarka kale cadow u yihiin waa la is-eedeedi doonaa hebel maxaan wadaa ugu dhigtay hebel maxaan ula xiriiray yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila hebelna maxaan wadaa ugu anoo ka dhiganna ayroone laqad adallanii can dikrigii oo iga baadiyeeyey qur'aanka nabi maxamed oo iga baadiyey bacda ijaacanii markuu ii yimid kadib is-eedeeday naqon doontaa ila almuttaqiina kuwii alla ka cabsadeen wadaaytinimadooda maan ribx waaye ziyaado waaye ilaa jamaacada isjiiday naqanayaan jannada ilaa ay ka galaan oo malaa'igta u tahniyeyso salaamun calaykum dibtum fadkhuluuha khaalidiina salaamun qowlan min rabbin raxiimin waa mahadsantihiin inta ziyaarta ka soo qayb gashay niswaadii rijaal waa ku faraxsannahay ziyaarta cawada waxaa yimid saadaadkii weynaay oo loo nisbe sheegahaayey oo aanu ka soo qayb galeen waa ku faraxsannahay cumrigooda iyo caafimaadkooda allah noo badiyo marka waxaan rabnaa in sida hadda noogula joogo cawada la dhafro adkaartii la nooleeyo siyaartii siyaalo badana looga soo qayb galaa qira waa looga soo qayb galaa adkaartan waa looga soo qayb galaa khidma waa looga soo qayb galaa ku sheeg alxamdu qurbaan bixis iyo qurbaansi waa looga soo qayb galaa khidma waa looga soo qayb galaa duco waa looga soo qayb galaa marka inta ka soo qayb gashay waxaan leenahay waa mahadsan yihiin guud ahaan ziyaaradani ayaa lasoo gabagabay doonaa maalinta beri ah iyadoona ay kasoo qayb gali doonaan dariiqada qaadiriya gaar ahaan uweysiya iyo seyliciya gabagabada banaanbaxa ziyaaradani waxaa goobta ka duceeyay qaar ka mid ah mashaayiqiintii waaweyneeda kasoo qayb gashay ziyaaradan marka waxaan leenahay aal axmediya allah barakeeyo mashaaikhdiinta allah barakeeyo wixna dhibaan allah naga reebo towfiiqda allah nagu fajiyo muraadada khaasa camal asalo ikhwaanana towfiiqda allahna waafajiyo ilaahay idinkiis
زيارتنا مقبول الله كدغو كل جين سانتي سوقان حج زيارك الله كدغو تقبلنا زيارتنا امين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته امين ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين امين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد محمد وداني سلامة تي في مقدشو